مواطنين بكو شقينيا محمد علي مواطنين بكو شقينيا ما يداونا ايو wadalkaaga ololahan oo ahaa mid lagu dayactirayay wadada weyn ee halbowlaha oo ah santarka shaxda oo hoostaga degmada Danood ee gobolka Doolo ololahan lagu dayactirayay wadada weyn ee halbowlaha oo ah ayadoo dhibaato ku haysay gaadiidka iyo waliba isu socodka dadka ololahan ayaa waxa ka qayb qaadanayay maamulka santarka shaxda oo hogaaminaya gudoomiyaha santarka shaxda iyo waliba sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan santarka shaxda wadadan dayactirka lagu sameeyay ee maanta laga guriyay ciidweynta oo ayadoo dhibaato ku haysay isu socodka gaadiidka iyo waliba sidoo kale dadweynaha ayaa ugu horeyntii waxa ka warbixiyay wadadan lagu sameeyay dayactirka gudoomiyaha santarka shaxda Cabdulaahi Cabdicadood Bulcadi asagoona sheegay in ay dadkan ku shaqeynayaan si iska wax u qabso ah asagoona baaq u diray qurba joogta in ay ka qayb qaataan sidii ay u dayactiri lahaayeen wadadan oo dhibaato ku haysay isu socodka gaadiidka iyo maarraxin halkan waxaan joognaa anagoo ah santarka shaxda gudoomiyaha santarka shaxda Buuhoodle Cabdulaahi Cabdicadood waxaan halkan ku guranay ilaa saaka 8 subaxnimo iyo inta 5 galabnimo ay tahay hadda waxaan guranay ciid taalay xagaafyada santarka dhexdiisa isgoosiyada meelaha masaajidada looga leexdo ilaahay waxaan ka baryaynaa in xasanaad naga siiyo waxa lacag oo idna ku qaadanaysa ma jirto dadka shacabka waxay ku shaqeynayaan muwaadinimo dhalinyarada aad arkaysaan ee taagan iyadoo ilaa macallimiinta iskuulka maamulka iskuulka cid walba ay taagan tahay culimadii haweenkii muwaadinimadaas lagu shaqeynayaa dadka qurba joogta ah ee wadanka u dhashay waxaan ka codsanaynaa muwaadinimada inay ku shaqeeyaan oo dadka lacagtoodii muruqoodii maalkooda ku dhistaan oo kaga shaqeeyaan oo isku kaaga garab taagaan oo magaalada u soo jeestaan sida magaalada kale ay u dhisteen wassalaamu calaykum waraxmatullahi waa arkaysaan bulshadii oo kala duwan dhalinyaradii ayaa shaqaynaysay maamulkii santarka guddiga nabadgelyada ee santarka haddii ay ku samee ogol yahay sidaasna waxa weeye muwaadinimada waxbarashada oo iyaguna macallimiinta waa arkaysaan waxa ay u shaqaynayaan ee wax ku qabanaya waxa weeye isxilqaan ay dalkooda isu xilqaameen inay wax u qabtaan cidka maxay ahayd kale oo taageero ay ka haystaan ma jirto ilaahay iyo hadeeba ilaahay bay yaani la kaashadeen xoogooda gaadiidkoodii shidaalka yaani ma garanaysaa ay dadka wadooyinka marmaraya baabuurta maraysa hal dollar iyo wax ku biiri bay ku biiriyeen shidaalka kaga shubayaan maxay ahayd iskaragooyinka ugu shubayaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxa maanta ilaa 8 ilaa xilligan waynu ku jirnaa 4 galabnimo soconaya shaqada iska wax u qabso santarka shaxda Buuhoodle meeshan waxay ahayd meel ay baabuurtu ay aad iyo dadku ugu dhiban yihiin maritaanka xitaa dadku ay waayeelka ayna ka gudbi karaan maanta se waxa la mari karayaa si kasta waa loo mari karayaa ciyaalka yar baa mari karaya dadka waaweyn baa mari karaya iska wax u qabso yaana ku jirta oo dadku iska wax u qabso ay ku shaqeynayaan dhammaan dadku waxay wax ku ururinayeen ilaa maaragtay 100 bir 50 bir 60 bir 70 bir qof walba wuxuu helo ururinaya UDB iyo iska wax u qabso ilaa nidaam ma dhawo waa 1 kiiloomitir weeyaan ciid inta laga guraya waxa kale oo sii jirta iyana meel 1 kiiloomitir oo dhinacan kale ka bixitaanka magaalada sida darteed degmada Danood ayay ka tirsan tahay santarka shaxda Buuhoodle nidaamkan waa nidaam degmada dhamaanteed ka jiro oo ah nidaam iska wax u qabso marka qurba joogta u dhalatay deegaanka waxaan ka codsanaynaa inay dadkooda iyo dalkooda wax u qabtaan sida dadyoga kalaba ay wax ugu qabanayaan iskuulada waxbarashada sida ay uga qayb qaadanayaan electric powerka sida ay uga qayb qaadanayaan biyaha in ay qurba joogta u dhalatay santarka ay wax ka qabtaan dalkooda iyo dadkooda ay wax u qabtaan ana ku hadlay afka ururka macallimiinta ee santarka shaxda maanta waxaa inoo bilaabatay shaqadaas oo ah shaqo iska wax u qabsaa inagoo ka shaqeynanay ciida iyo wadankan aad aragtaan waxaan dhalinyarada ku boorinayaa in ay ka shaqeeyaan horumarka sida waxbarashada caafimaadka iyo nabadgelyada sidoo kale waxaa dadweynaha laga codsanaya inay soo diiwaangeliyaan nidaamka xisbiga oo ay ka mid noqdaan xisbiga oo ay noqdaan xubno xisbi
dhammaan dadka oo dhan waxaan ogeysiinaynaa in xubno xusbi ay soo noqdaan. sidoo kale maanta waxaan ka shaqaynay horumarkan. xusbiga aan ka hadlay waa xusbiga barwaaqo, xusbiga dowladdeegaanka barwaaqo ee la magac baxay barwaaqo. sababta magac ula baxana ay ahayd inuu dadka barwaaqo gaarsiin doono insha Allah hadduu ilaahay dhimo. aad baad mahadsantihiin. waxaan ka codsanayaa ardada wax ka barata dowladdeegaanka Soomaalida, gaar ahaan ardada wax ka barata santarka shaxda ama dugsiga hoose dhexe ha ahaato ama dugsiga sare ha ahaato, in waxbarashadii ay bilaabayso 20 bisha inay sida ugu dhaqsaha badan uga soo qayb galaan oo ay soo diiwaangeliyaan ayaan ogeysiinayaa. Maxamed Cali Bile, warbaahinta qaranka Soomaaliya, Buuhoodle.